kahor islaamka haweenku waxay ahaayeen kuwa dulmanayaal ah oo xuquuqdooda la duudsiiyo aabaha haddii loogu bishaareeyo dhalashada in gabadh gurigiisa ku soo biirtay waxa uu ahaan jiray mid ismadoobeeya oo ka xun arrinta iyada ah sida rabbi subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka inoogu sheegay suuratu zukhruf ninka sawjad qaba waa uu dulmin jiray markuu rabana waa iska furi jiray markuu rabana waa uu soo ceshan jiray walaalo waxay ahaayeen kuwa walaashood xuquuqda duudsiiya dhaxalka oo iyagu qaata arrimahaas oo dhan islaamku waa uu tirtiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii la soo saaray haweenku waxay yeesheen xuquuq dhammaystiran dhinac walba waxaa diintu tilmaamaysaa fadaa'il tiro badan ay gabadhu yeelanayso makaan kasta in nolosha ugu jirto hadday hooyo tahay jannadaba waxaa lagu xidhay raalli ahaanshaheeda oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay in jannada gomadaha hooyooyinka inay taallo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay marka haweenku ay yihiin awlaad la dhalay qofkii koriya oo korintooda hagaajiya laba gabdhood nebigu wuxuu yidhi aniga iyo jannada qofka darajadaas ayaan isdheeraanaynaa labada afrood intay isdheer yihiin haddii xaas la qabo ay tahay meher ayaa waxaa lagu waajib yeelay sawjkeeda ama ninka guursanaya nafaqada iyo shaqada adag ee bannaanka laga soo qabanaya reerkana ninka ayaa korkiisa la saaray walaasha waxaa xuquuq la siiyey in dhaxalka aabaheed markuu dhinto ay leedahay dhaxal dhammaystiran sidoo kale diintu waxay tilmaamaysaa oo ay marar badan inoo sheegaysaa wacaashiruuhum bilmacruuf waxaa dumarka kula dhaqantaan wanaag iyo macruuf sidaa darteed islaamku dumarka waxa uu siiyey xuquuq dhammaystiran maanta waxaa soo baxay hay-ado gaala ah oo dumarka uga faa'iidaysanaya feminism wax la yiraahdo oo u sheegaya in xuquuqdooda la dudsiinayo waxaad arkaysaa Mareykan iyo reer Yurub oo mar walba leh wadamada islaamka ama Soomaaliya oo kale dumarku waa ku dulman yihiin oo ku fangareynaya kharashaad tiro badan laakiin waxa ay sheegayaan been sababtoo ah halka islaamku gabadhu waxay quudanayso nafaqada ninka la saaray inuu isagu soo shaqeeyo wadamada gaalada ninka iyo gabadhu way u siman yihiin guriga adeegiisa iyo dhaqaalihiisa iyaduna dhinac bay ka shaqo tagaysaa iyadoo misana xaamilanimadii iyo inay ilmo caloosha ku xambaarto dhasho nuujiso ay iyada sugayso dhinaca madaxtinimada Mareykan oo maanta u dooda in dumarka xuquuq la siiyo ayaa intaas soo jeer dumar isa soo sharaxeen oo la dooran waayay bal u fiirso Kamala Harris iyo qoftii magaca lahayd ee la oran jiray Hillary Clinton sidaa darteed islaamku qofta dumarka iimaanka leh xuquuq dhammaystiran ayay ku leedahay oo hadday ku qanacsan tahay ilaahay diinta hayna fahansiiyo aad baa u mahadsantihiin